حسرامي يا جماعة شعب في بطلان لو كستو أي شوغان وعن أول شيء يقول يهمر سيدا الله سبحانه سيدي بيشكوا لبقوا من سيدي يطبق والأشياء اللي قصوا أبوي ما مخرجيسة هي واحد دولان أو كسر قادم كبطلان وهنا الدولان كاسكو أبصرين deegaan ka tukarad ay ka tigteen degmada Laascaano oo gobolka Sool waxaa xusid mudan in duulaanku maamulka Hargeysa uu ku soo aaday Puntland xilli uu booqasho rasmi ah Puntland ku joogo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxayna taasi markhaati u tahay sida uu maamulka Hargeysa u carqaladaynayo geedi socodka midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed Puntland waxay ku mashquulsan la dagaalanka argagixisada caalamiga ee Shabaab iyo Daesh. Duulaanku maamulka Hargeysa ku soo qaaday Puntland wuxuu garab iyo gaashaan buuxa u yahay argagixisada caalamiga. Puntland waxay culays ka saartay horumarka dalka iyo dibadhiskiisa mana doonayso in ay daadiso dhiig Soomaaliyeed. Dowladda Puntland way ku filan tahay difaaca dhulkeeda iyo dadkeeda waxaana u sheegayaa maamulka Hargeysa duulaanka ku soo qaadeen Puntland inay kala kulmi doonaan cawaaqib xumo inay heli doonaan jawaabta ku habboon haddaba waxaan shacabka reer Puntland gudaha iyo dibadda ku wargelinayaa inay u diyaar garoobaan difaaca dalkooda isla markaana ay garab istaagaan ciidamada difaaca Puntland si loo xaqiijiyo midnimada iyo wadajirka Puntland shacab ahaan iyo dhul ahaanba ugu dambeyntii waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya daneeyayaasha xasiloonida Soomaaliya iyo beesha caalamkaba in maamulka Hargeysa uu mas'uul ka noqon doono xawaarqimada ka iman doonta duulaanka qaawar ee ku soo qaadeen deegaanka Puntland wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi